السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دawadayaal idil hantiinba meel walbood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ciyaaraha ee wiiglaha ahaa ee dhiirigelinta dhalinyarada. Barnaamijku ka duwan yahay toddobaadadii hore. Toddobaadkan waxaa inagu martiya xusbiyada mucaaradka ee dalka ka dhisan. Sidoo kale waxaa inagu martiya agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Waxaanu ku lafaguri doonaa inuu ku eegi doonaa arrimo doora oo la xidhiidha ciyaaraha iyo sportska dalka. Sidoo kale waxaa jira xidhiidhka oo ay ka wada mas'uul tahay wasaaradda oo inagala joogo agaasime Maxamed Nuux. aynu iska gudagalno barnaamijkeena iyadoo aynu ku sii socon doono barnaamijka. waxaan ku wareejin doonaa marafayrka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo marti inooga yahay agaasimaha waaxda ciyaaraha Maxamed Nuux. ku soo dhawo barnaamijka. bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin. waa dhowahay Sakariye. waxaan salaamayaa xogayaha xidhiidhka gobolada ee xisbiga UCID Cabdiqani Ibraahim Salaf iyo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani Yunis. aad iyo aad baan idin salaamayaa iyo Ariel TV. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidoo kale aan isna fursad u siiyo Yunis Axmed Yunis, xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani. ku soo dhawow Yunis. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. markii waad ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaynaa. marka labaadna TV-ga Ariel agaasimaha xidhiidhka ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo xogayaha xidhiidhka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga UCID Cabdiqani Salaf. aad baan ugu mahadnaqayaa barnaamijkan qiimaha badan ee kasoo qayb galeen. mar labaad waxaan mahadnaqayaa Ariel TV. sidoo kale aan siiyo kelmad xogayaha xidhiidhka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga UCID Cabdiqani Ibraahim Salaf. bismillaahi raxmaani raxiim. allahumma wafiqna bima tuxibu wa tardaa. waxaan uga mahadnaqayaa martiqaadka bahda Ariel TV. sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan xafladan ka soo wada qayb galno barnaamijkan madaxa waaxda ciyaaraha wasaaradda ciyaaraha Maxamed Nuux iyo haddii beenka leeyahay xoogay Yunis, xogayaha dhalinyarada ciyaaraha xisbiga wadani. waxaan leeyahay soo dhawaada. arrin fiican baan insha allahu tacaala halkan isla jaangeyn doonaa barnaamijkeena inagoo ku sii soconaynaa. tani waxay ka mid tahay heerka uu marayo dalkeenu in ay wada doodaan wasaaradda iyo sidoo kale asxaabta mucaaradka ahaa. aanu siiyo agaasime Maxamed Nuux, agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, inuu naga siiyo faahfaahin koobkii dhowaan ay iclaamisay wasaaraddu oo si rasmiya uga bilaabmay Stadium Hargeysa galabta. ku soo dhawow agaasime. alxamdulillaah rabbil caalamiin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sakariye. sidaad sheegtay maanta waxaa bilaabmay tartan kubadda cagta ah oo ay ku tartamayaan kooxo kala duwan oo ka dhisan caasimadda Hargeysa oo ah 29 kooxood. kooxahaasi waa kooxaha heer koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad. haddii aan waxoogaa sii tafsiiro, waxaa jira sistamyada caalamka ee ciyaaruhu ay u dhacaan waa laba qaybood wey. tusaale haddii aan ka soo qaado Yurub oo kale, ciyaaruhu waxay lagu ciyaaraa waxa weeyaan magaalooyin away iyo home baa la yiraahdaa. مثلا tusaale haddaynu ka soo qaadano Ingiriiska oo kale oo aad loo yaqaan oo la daawado ciyaarihiisa. Man United waa magaalo ka jirta, Liverpool magaalo ka jirta, magaranaysaa London oo kale waxa ka jira kooxo. marka kooxahaasi ayaa wada ciyaara. waana systemka Europe iyo Latin America iyo dalalkaas ay ku dhaqmaan. haddaynu ka soo qaadno wadamadan geeska Afrika oo kale, Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Somaliland, systemka ay naadiyadu ka dhisan yihiin heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad waa caasimadaha. marka tartamada sidaas ay u kala duwan yihiin. marka laga hadlayo ciyaaruhuna kulliba waa shuruucdu waa laba qaybood. waa mid international iyo mid local. labadaas ma lagu dhaqaa. waxaanu meel ka metelnaa haddaan nahay ciyaaraha maxkamadaha. waxaad arkaysaa buug la sameeyay oo shuruuc ciyaaruhu ku yaalaan ay ku taalo law of the game. marka waa shuruucu. hadday basketball shuruuc bay leedahay, hadday kubadda cagta shuruuc bay leedahay, tennis shuruuc bay leedahay, handball baa leh, dabaashi baa leh, orodkii baa leh, boodadii baa leh. waa ciyaaruhu kala duwan yihiin. marka wuxuuna shuruucun baa lagu maamulaa. waxaanaynu u baahannahay Soomaaliland ahaan waxaan nahay dal curdina oo isu tashanaya. xisbiyada qaranku maanta ay martida ku yihiin doodeenan waa niman dhalinyaro ah, waa niman aqoon-yahano, waa niman wadanka wuxuu soo bartay. waxaynu doonaynaa inaynu dadkeena dhalinyarada waa 70%
inaynu wacyi gelinno duruufahan adaga aynugu gadaanan ee hadday tahay xag dhaqaale iyo hadday tahay xag colaadeedba inaynu dhallinyaradeena ka samata bixinno oo dhiiri gelinno oo tartamada ciyaaraha u qabanno oo aynu garab istaagno ciddii ay magaranaysaa sharcigu siinayeen ciyaaraha qabtaan oo ay magaranaysaa wasaaraddii iyo xidhiidhadii ay kaashanaysa aad iyo aadna waan idin salaamaya agaasime maxamed nuux aad buu mahadsan yahay aan siiyo yonis axmed yonis oo fadhiya dhinacayga yonis maxaad ka xisbi ahaan ka qabtaan wareegga dhallinyarada ee loo furay ee lagu dhiirigelinayo kana furmay caasimadda oo ah Hargeysa si rasmiya galabta ma ka qayb gasheen si ka xisbi ahaan aragtidiinu maxay tahay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sallallahu alayhi wasallam horta Ariel TV waa mahadsan tahay agaasimaha ciyaaraha maxamed nuux programka uu nasiiyayna waa ugu mahadnaqaynaa laakiin waxaan jeclaa inuu halkaa maxamed nuux maanta joogo wasiirkii dhallinyarada ciyaaro fadhiyo oo ah dee madaxa ugu sarreeya wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha madaxweynaha iyo xukuumadduna u igmadeen dhallinyarada ciyaaraha taas waa iga baraarujinun annagu xisbi ahaan tartanka waanu qaadacnay horena waanu sheegnay haddana waanu ku celinaynaa asbaabtan oo qaadacnayna waxay hayduun inaanan u arkayn tartankaas mid feera oo xaqa oo xula oo dhallinyaradu dee ka wada qayb geliso waan jecelahay in dhallinyarada Hargeysa iyo kuwa Somaliland oo tartan loo qabto waan jecelahay in dhallinyarada la dhiirigeliyo hore iyo dambayso deemanka agaasimeena la joogo oo sheeganayo haddii wasaaraddu wax qurux badan oo dhallinyarada dhan u cuntama loo sameeyo waxaan ballan qaadanaa ama warbaahinta ka hambalyeeno ama meesha program ku qabanay u tagnoon bogaadinoon baarigno laakiin tartankaas wuxuu noo u aragnaa mid baalmarsan qawaaniinta iyo shuruucda ciyaaraha marka saa leenahayna demelhin dhallinyarada Hargeysa maxaa tartan lagu qabanaya in badan baan u lahayn alla qabto xisbi ahaan iyo shakhsi ahaanba tartanka inta kaliya ku suluugni waxa weeye systemka loo soo maray waxa weeye in magacii Somaliland looga dhigay hal ku dhigga koowaad ah Somaliland FA marka waxaan iska dhaxarki waayay goboladii Somaliland taasaan horta ku qaadacnay qodobka koowaad ku qaadacnay waa taa waxay ahayd wasaaraddu inay haddii qabanayso tartan inay u bixiso Somaliland oo dhan haddii u bixinayaan inay Hargeysa kaliya ku koobaan de waxaan u arkaynaa waxaan mantiqa geli karay marka horta taasaan ku qaadacnay waanan bogaadinaynaa in dhallinyarada tartan iyo motivation iyo dhiirigelin loo sameeyo laakiin de sida loo soo xulay nidaamka loo soo xuliyo programku ayaad moodaa inuu dhinac ka raran yahay de kale agaasimihiina inuu la jooga isaga naga qancin doono inta noo baxday anigu tartanka ku qaadacnay intaa weey aan siiyo cabdiqani ibraahim salaf kelmadiisa cabdiqani ka xusbi ahaan xusbiga ucid ma la qabtaan xusbigan dhigiina ee mucaaradka ee wadani ilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh mar labaad uu mahadsan yahay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda maxamed nuux warbixintuna siina uu ku mahadsan yahay su-aasha aad weydiisay ka xisbi ahaan anagu arrintan horaan uga hadalnay dhallinyarada Somaliland oo sidaa aynu wada ognahay 70% wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu waa wasaaradda ugu muhiimsan wasaaradaha ee la doonayo inay hawlgeliso mashquuliso dhallinyarada oo ay jahayso 70% dadka waddanka ugu firfircoon dadkii waddanka magaranaysa xooggiisii ahaa mustaqbalkii waddanka way dhallinyaradu marka kulli challenge weyn bay arrintaas u baahan tahay dhan markaan ka eego xisbi ahaan kulli in wasaaraddu horta ay marun bilowdo bal ugu yaraan wareeg oo waxaan ugu faraxsanahay way qurux badnayd in ugu yaraan bal horta wareeg la bilaabo oo dhallinyaradu isdhex gasho aad muddo waxaad moodaa la kala yara qoqobnaa sideen wada ogsoonahay saddexdii sane ugu dambeysay waxaan malaynayaa markii koowaad ee la qabto wareeg noocan oo kala markii ka horreysay la qabtaana waxay ahayd markii 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay horta la qabto goboladii ciyaarihii gobolada markaasna waqtigii ka horreeyay 3 sano inay ka badneed baan aaminsanahay way raageen ciyaaruhu xukuumaddii kulmiye ee hore haafkeedii hore run ahaantii aad bay ugu fashilantay qaab wasaaradda qaybta dhallinyarada ciyaaraha laakiinse xilligan cusub ama sessionkan cusub ee Muuse Biixi oo filinay runtii in wasaaradda wax weyn ka bedelo iyo wasaaradaha dalka oo dhan dhiig cusub geliyo oo ay wasaaraddu si fiican u shaqeeyaan tanna kuwa ugu muhiimsan ay tahay maadaama maanta dhallinyaradeennii ay u baahan yihiin cid jahaysa tahriibka ka hor istaagta fursado u abuurta barnaamijka rajada dhallinyaradu
iyo ma garanaysa bal inuu inay dowladdu wax ku dhaqaaqdo horta way fiican tahay laakiinse in iyadoo Somaliland FA loogu magac daray wareegan haddana ay gobolladii yidhaahdaan dee hargeysuunbaa wixiiba isku koobtay in marka horeba loo bixiyay hargeysa FA waayo waddanku waa gobollo ka kooban yahay gobolladuna sidaynu wada ogsoonnahay caasimadda dee ma diidanin inay laga ciyaaro oo ay qayb libax qaato oo dee waxaa ku nool 50% dadka ku nool hargeysa ku nool yihiin haddana gobolladuna waa meelaha ugu baahi badan ee la doonaya in lagaga soo jeediyo ma garanaysaa meelaha kale u hantaagayaan iminka gobollada ama bariga ha noqoto ama galbeedka ha noqoto Somaliland waxay u baahan yihiin in ka badan inta hargeysa ku joogta in la dhiirigeliyo fursad la siiyo waxa uga baahi badan kuwa darafyada oo kale koonayaasha oo kale gobollada yaryar ee iminka soo kacay oo kale in lagu dhiirigeliyo inay naadiya samaystaan wareeg kasta ay ka qayb galaan ka hoose ka dhexe ka ugu sarreeya marka inay horta ugu yaraan wax bilaabmaan waa arrin wanaagsan laakiinse sida loo maamulo ee hargeyso qura loogu koobay dee waddanku hargeyso qura maaha waxaanu la qabnaa dadka gobollada jooga anigu iminka bilmetel ahaan waxay iga soo gashaa ciyaaruhu waxaan ahay xidhka gobollada waxaan ahay xogayaha xidhka gobollada gobolladii degmooyinka dhan baa cabasho liiga soo diriyay markii la lahaad xisbi ahaan maxaa wax uga qaban weydeen miyaa la qabtaan dowladda in hargeyso oo qura laga soo xulo naadiyada taana markaana uu kuma qanacsan raallina kama nihin waa in dalka si fayra gobolladoo dhan uga qayb galaan waad mahadsan tahay muuse aan ku noqdo agaasime waaxda iyo ciyaaraha maxamed nuux agaasime waxaad si rasmi uga bilaabmay galabta Hargeysa Stadium FA Cup kaasoo loogu magac daray 28 kooxood ay ka qayb galayaan sida la sheegay heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaad waxa kaliya cabashadu ay ka taagan tahay iyadoo la bogaadinayo in dhalinyarada la dhirigeliyo tartankana aad loo soo dhaweeyay maadaama ay tahay Hargeysa mid meel kamid ah Somaliland tahayna goobtii ugu muhiimsanayd oo caasimadda iyaduna ay kow ka tahay in maanta laga bilaabo si rasmi ah koobka uga bilaabmo agaasima kelmadda kaliya ku weydiinaya waxay tahay cabashada ugu badan ee shacabka iyo waxa kaliya ay taagan ay tahay maxaa gobollada kale ka reebay adigoo ka qancinaya labada xusbi sidoo kale ka qancinaya gobollada dalka maadaama aad caawa matalayso wasaaradii guud ahaan maxay tahay ra'yiga iyo qancinta aad caawa aad u hayso intaasoo dhalinyaro ku daawanaysa bismillaah alxamdulillahi rabbil caalamiin horta ciyaaruhu inaynu siyaasadeenno maaha ciyaaruhu waa isdhexgal iyo isbarasho iyo maxaan ku idhahday isu soo hilo inay dhalinyaradu kulmaana wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu way u egman tahay markaynu ka hadlayno masalan xisbiga wadani oo Yoonis nagala fadhiya waanu annagu horaan u qaadacnay waanu qaadacaynaa horta dee doorasho ma ahayn la qaban hiye waa ciyaarahana cid baa u egman ciddaa u egman baana qabanaysa shuruucdan imaka halkan inoo yaalla waa shuruucdii xidhiirka lagu maamulayay xeeroosaadkii baa inoogu jira tartankankii lagu dhaqayay baa inoo yaalla waxa weeye waxaan sharci bay leeyahay marka sharciga baa lagu maamulayaa caasimadda hargeysana sida aan idiin bayaamiyeen mar labaadna waan ku celinayaa naadiyada heerka koowaad ee ka jira gobollada dalka oo dhan ciyaartooygoodu ka yimid haddaan tusaale idiin soo qaado ciidanka goodirnimada u ciyaara dalka way ka midaysan gobol aanay ka iman hawl bay ka yimaadeen gabiile bay ka yimaadeen awdal bay ka yimaadeen sanaag bay ka yimaadeen waa naadiyadii heerka koowaad tusaale haddii aan halkaa idinka yarsiyoon idiin iftiimiyo Soomaaliya markaynu isku jirnay ciyaaraha naadiyada heerka koowaad Muqdisho ka jira maanta dee Hargeysa ka jiraan caasimadda oo dadka nationka Somaliland ugu badan ku nool 100% naadiyada heerka labaad oo sida heerka saddexaad oo sida gobolladana way ka jiraan waana u qabanaa tartan imaka 2 week ka hor boorame tartan ma qabanay 12 kooxood gabiile baa loo qabtay 2 bilood ka hor wax qabadkii waxaan ku raahday wasaaraddu halkan uu ku cad yahay dad ku yaala 3 biloodkii كان صوغ ونور واقوى وكعاديه واقوى ويدين عدد من ملايين مركاين أرضي بان قوانين باسكت بان قوانين كوي حبلها قوانين ودوان دماده وسكرين ولا صوغ بشيء لو قبته سقس لحتين لو قبته إلى الصوب بالغ سوق قبته أرضي gobolada kale ee aan wali ka qabanay noo hareen waa ka qabanayna qorshahaygu noogu jira goboladuna waa noo sameeyeen meel walba isu duwayaasha iyo shaqaale wasaaradda xiriirada qaybahooda kala duwan dadkii uga wakiilka ah jooga marka waxaan u baahanahay xisbiyada mucaaradka iyo dawladduba inagoo iskaashanayna inaan dhalinyarada dhiirigelino aad baan ugu bogaadinayaa Cabdiqaniyo in wax la qabto
waan ku faraxsanay buui waa sax iyaguna inayna tilmaamaan oo dhaliishayadana sheegaan oo si fiican noo toosiyaan waa aqbalayna waana soo dhaweynaynaa ciyaaraha dee yonis ciyaartooy buu ahayho anigu marku de ciyaartooyga ahaa madax baa ka ah wasaaradda sidii dee loo dhaqmeeyey sidii loo shaqaynayay uu ogaayey stragalka anu soo maray halgankii loo soo maray maalin ba step baynu qaadaynaa inaynu xagga moralka isu dhisnaa waa wanaagsana inaynu sidaynu doorasho qabanayno nidhaahno waa qaadacla beesha ma leega waxaan markaa leeyahay ciyaaruhu waa sharciyo gobolladana waanu ka qabanaynaa diyaarna waanu nahay horena waanu sheegnay inaanu ciyaarihii gobollada iyagoo gaara uga qaban doono iyagoo jamacana ciyaari gobollada intay reebreebkooda la ciyaaro isa soo reebreebaan in caasimadda la isugu iman doono halka koobka oo xisbiyadana waa kusoo casumayna yonis baan yar durayaa yonis markaanu idin soo casuno waa jartaane bal ha jarin uun maantaba munaasabad weyn oo ballaaran oo cid waliba ay joogtay oo maxaan ku dhahday 29 kooxood oo misodon inani ay yimaadeen oo labada tarabuunba buuxaan oo saxaafadii markay waxay naga duubaysaa ku habsaameen baa jirtay inaad dhiiri gelisaan dhalinyarada wanaagsan oo timaadaan dee maaha inaad tirahaan waanu qaadacna oon iska fadhiisan arrimahaas waxay ku habboon yihiin inaynu isla qabanno ciyaaraha midayno dhalinyaradeenna ay kula dagaalamaan qabyaaladda iyo muqaadaraadka iyo dadka somalilan waxa kala fogeynaya iyo tahriibka iyo nidaamka inay physically iyo mentally ba ugu dhismaan baa ciyaaraha aynu ku talagalnay marka ciyaaruhu waa isbarasho iyo isdhexgale aynu tabantaabin oo dhinacna la qabto aadna waa mahadsantahay agaasime maxamed nuux aad buu mahadsan yahay iyadoo wax badan uu noo iftiimiyey aan ku noqdo yonis axmed yonis oo ka mid ah xogayaha xidhiidhka xisbiga wadani kusoo dhawo yonis su-aashan ku weydiinaya waxay tahay dhowaan waxaad iclaamiseen inaad tartan u qabanaysaan gobolada dalka iyadoo wasaaraddu iyo dhalinyaradii ciyaaruhuna arrinkaa ka jawaabtay yonis ma tahay sida agaasimuhu ka dhawaajiyay in dhalinyarada wax loo qabto iyadoo la iskaashanayo saddexda xusbi dhaliisha wasaaradda iyadoo la iftiiminayo iyadoo wasaaradduna ku khasban tahay inay waxyaabaha khaladaadka dhaca ay saxdo ma tahay in loo iftiimiyo ma tahay maxaa se uu yahay su-aasha jawaabta aad ku hayso inay gobolada aad u qabanaysaan maxaad se uu yahay qorshihiinu waxba nooga iftiimin kartaa bismillahi raxmaan raxiim sakariyow horta dee oon mahadnaqayaa maxamed nuux inuu waagan ciyaaraya ilaa iminka uu halgan iyo ugu jiro strikal in dhalinyarada somaliland qurux badato isaga shaksi ahaan waa dadkan isle ku habboonayn wasaaradda ama wasiir laga dhigo ama agaasimo guud marka waagaygii aan ciyaariya ku bedelatay iyo ahaa maamul oo de ixtiraam baan u hayaa laakiin de anigu maana oran ciyaaruhu waa doorasho waan qaataxan nidaamka ciyaaruhu maan ka hadlaynay marka waxaan muddo badan ayaan qaylinayna oon ka hadlaynaan lahayn ciyaaraha la qabto maamulka kulley dhowr jeer baan isku dhacnay kuwii imika iyo kuwii horeba anu waxaan jeclay inaanan mar walba waan sheegaa inaanan ciyaaraha siyaasadeen bilxaqiiq iminka muddo ka sokowsay 2 sano ku dhow I think inay 2 sano doorashadii ka hor ayaan burco alamsi stadium badumay oo saan nidhi wasaaradda iyo maamulka gobolka togdheer ayaan intan barbeeso u qornan dhaqaalihii iyo wixii u keenay ku nidhi naga qabto garoonka uu dumeeyay de wixii waxa weeye tamantaawe naga qabta maamulka gobolka iyo kii degmadu way nagu diideen maamulka ciyaaraha gobolka togdheer uu nagu diiday waxaan de meeshii nimido annagoo badan oo xisbigii oo maamulka xisbiga oo heer qaran iyo heer gobolba ayaan ku nidhi garoonka aynu wax ka qabano istusno budgetkii ku baxay wixii soo qorsheynay waanu dhagax dhignay waxaan ku nidhi dadka bulshada xisbiyadu waxa way hanti qaran ku leeyahay qaranka qayb ka yihiin in loo arko ma xisbiyada mucaaradka ah qaar aan qaranka ku jirin marka wasaaraddu way nagu diiday marka waxaan daba socdaa hadalka maxamed nuux ah wax nala qabta horta dhowr jeer aan barbees ku sameynay wasaaraddu aad bay iska waana sunnada Afrika iyo Somaliland bay yaalo in mucaaradka laga cararo waa wax weeye maamulka markaa jooga wax iska laakiin waanu jecelahay in dhalinyarada wax qabanayaan laakiin xaq qiraan tartankaasi inuu ahayn tartan xul ah oo dhalinyaradii gobolada dhan ay ka qaylinayaan anagoo kalimaana qaadicin maxamedow dhalinyaradii gobolada dhan ba qayliyay horena intiidan bilaabay 2 bilood ka horna waan inii sheegnay haddana waan inii sheegnay haddana waan iigu celinay tartankaas waxa in loo bixiyo Hargeysa Cup aniga sida ay la quman dhalinyarada Somaliland ku qurux badanayso maaha mar walba siyaasadun baa la yiraahdaa bursi baa la helay oo dadku kala caawda
haddii ciyaarihiina sadbursi la sameeyo waa mushkilad weeyaan inanka baran jooga inanka buuhor la jooga iyo inanka hargeysa jooga waa isku xuquuq oo ciyaaraha waa ka xuquuq oo maxamed baa u agaasimaa maxamed nuux baa agaasimo waa marka inuu qorshe iyo nidaam la yimaadaan oo ay ku waxaynayaan anagu hadday dhaqaale noqoto hadday aqoon noqoto hadday taakulo noqotoba iyo hadday muuq noqotoba diyaar baan olan laakiin waxaa wasaaradda ka muuqataa iska caabin marka mucaaradka iyo dadka haldoorka ciyaaraha ee dhalinyarada hadlaan ay platformka yimaadaan iyo warbaahinta inay markiiba ku jawaabaan waxaas waxba kama jiraan iyo waxaas waxba kama jiraan xaqiiq waxaa maanta somaliland ah inaan la qaban tartano muddo badan xaqiiq weeyaan hadday noqoto heerkii koowaad dee 2000 iyo hal sano iyo sayid baa malaa la qaban koobkii heerka koowaad kii gobolada 3 sano sii cararaya kii degmooyinka xilli la qabtayba la garan maayo kii heerka labaad I think in 8 sano 9 sano sii cararaya wasaaraddu waxa noo muuqata annaga jadwalkooda ciyaaro inuu ahay mid continuous oo xidhiidha oo isku xidhan oo day to day ayaa noo muuqata tan u duraynaana wata hadday nidaamkooda iyo shuruucdooda maxamed nuur noo sheegayo ka dhabeeyaan ciyaaruhu wax badan kuma baxayaan dhalinyaradu way noo diyaar garoomadu way noo diyaar dalkeena nabadgelyo baan haysanaa waxa u baahannahay ciyaaraha si fiican oo hagan oo hufan loo maamulo waliina waxaan qabnaano wasaaradda maamulka ku habboonaanayna xaqiiq marka laga hadlayo xulashada la xulanayo wasaaradda dadka ugu sareeya jiheeya waa wasiirka ayaa jiheeya iyo agaasimaha guud inkastoo agaasimaha guud iyo wasiirku cusub yihiin muddo 7 bilood joogaan oo ixtiraam u hayno oo waliba shaqadii koowaad qalqalo cibid waxa uu rajeynaa shaqada dambe inay hagaajiyaan hadday noqoto taakulo iyo taageeraba xisbi ahaan diyaar baa u nahay laakiin waa inay iyaguna markan proposal ko soo qornaano waxa saa khaldan waxa qab inay ka jawaabaan sida caado uga jawaabaan marka ciyaaraheenu uma baahna in la siyaasadeeyo dal soo korayaan iyo run waxa u baahan in dhalinyarada la dhiiri geliyo maanta qabyaalada waa cirka maraysa waxa maraya tahriibka waa batay waxa kaliya dhalinyarada lagu jeedin karaya waxa weeye ciyaaraha loo hago iyo waxbarashada labadaas dhalinyaradu isku dhex gashaa laguna jeedin karaa qofku markuu bad ciyaaro uu daalayo buuq khaliya balaayo kala gelmay laakiin markuu aanu ku bad ciyaaro uu daalay energy-giisa iyo tamartiisu waa xoogan banaanku la jooga marka waxa dadkii laayay waxa dalkii ka tagay waxa buuq sameeyay marka dalkuna way naga dumeen 70% way dhalinyarada marka in qorshe loo sameeyo wasaaraddu u sameeyso nidaam u sameeyaan nidaam ku jiray in la fuliyo weeyaan marka anu waxaan jecelahay in inta soo koobo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan jecelahay maxamed inuu mahadnaqo oo aan arkay muddo dhowr 10 sano oo wasaaradda qayb weyn ka ahaa laakiin wali xagga maamulka madaxweynaha cogashada madaxweynaha ayaan suugaynaa madaxweynaha ayaan ka suugaynaa cogashada inuu wasaaraddaas oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hadda wasiirkooda wuxuu joogaa cilaf weyn ma hayno tago xaqiiq ma shaqo u taalo ma wasiirka dhalinyarada ciyaaraha inuu qabaayilka iyo deegaanada tago in lagu soo xisho deegaanna ma wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha in lagu soo xisho weeye shaqada aqoonta kartida iyo kriteeriyada wasaaradaha kala siyaasiga maaha aweeyay in la qabaayilka iyo waxyaalaha noocaas ku laakiin wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha in wasiirkooda cilaf weyn joogaan wax la aqbali karo ma anagu yeelmayno aan siiyo cabdiqani ibraahim salaf cabdiqani ka wasaaradahan dalkeenu 27 sano uu jiray heerkii laga soo bilaabay maxamed nuux iyo aragga wasaaradda la soo bilaabay iyo heerka uu maanta marayo waxa u dhaxeeya farqi weyn iyadoo marigii hore aanu jirin cid xitaa inanka ciyaartooyga receive garaysa ama full day daily life-kiisa aanu heli jirin maanta heerkeenu marayna weyn ka wanaagsanahay marka loo eego xilliga garoomadeeniyo diyaarsan garoomada qaar oo runtii u diyaarsan roogi cagaarna yaalo waxyaabaha maxaad xusbi ahaan maxaad ku soo kordhin lahaydeen wasaaradda ciyaaraha oo aynu bogaadinayno mar labaad iyo mar saddexaadba inay u furto dhalinyarada tartan uu kana furmo maanta si rasmi ah Hargeysa uga furmo ana habboon tahayna in dhalinyarada la dhiiri geliyo mar walba ka xusbi ahaan maxaad tala siin lahaydeen maxaad si ku soo kordhin lahaydeen ma la qabtaan xusbiga digiina sidaad horeba u sheegtay cambaareeyay ama qaadacay inuu tartanka ku taageero wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ka wasaaradahan maxaad ku soo kordhin lahaydeen tala maxamed nuux oo inala fadhiya mar walbana u diyaara wixii dhaliil ee toosina inay qaataan bismillaahir rahmaan waa su'aal wanaagsan markaan hadalka halkiisa ugu tago horta runtii inkastoo de kulmiyo xisbigii kulmiyo haayo imka 7 ilaa
sanadkan un dee kulmiyaan u xisaabinayno 8 sano haddana inde kulmiye 2 goor buu ahaa qaybtan dambe waxaan odhan karaa 7 bilood qulun baa kasoo wareegtay imika soo maaha intii ay dowladda cusub jirtay wasaaraddu imika 7 bilood waqti badan maaha waxaa loogu dhuftaa usha si uu ka sii badiyo waxaanu leenahay war sidii wasaaraddii hore ee 7 sano ku dhamaysatay iyadoo aan waxba qabanin ha noqonina ee wax u qabta dhalinyarada isu keena dhalinyaradu waxa weeye halbowlihii dalkan haddii dhalinyaradu waxba loo qaban waayo oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxba qaban weydo dowladda oo kale shaqo abuur laga siin waayo fiican shirkaduhu waxba u qaban waayaan dhalinyaradu waxuunbay baran deetana meel ay u shaqo tagaan bay waay ugu yaraan xitaa ciyaarahani waa fursadda keliya aanu haysanen dhalinyarada uga faa'iideyn karno waxa weeye sideedabana dee maamulka waa la kala leeyahy aad baan ugu mahadnaqayaa agaasime maxamed nuux agaasime waaxeeda muddo badanna soo joogay haddana shaqada waa la kala leeyahy shaqada waxa weeye policy formulation dadka qaar ba siyaasadda dejiya waa top level management 3 qaybood buu maamulku u qaybsamaa top level management iyo middle level management iyo low level management marka top level management waa wasiirka iyo kuwii la midka ahaa ee madaxweynuhu ka mid ahaa ayaa siyaasadda wasaaradda waxa laga rabaa inuu soo dejiyo wasiirka fulintana waxa laga rabaa middle level management ama line management oo kuwa hoose gacanta ku haya ee fulinaya hawsha sida agaasimo waaxeedyada iyo maamulayaasha hoose iyo isduwayaasha ka hooseeya ee ka shaqeynaya wasaaradda ayaa kuwa gacanta ku fulinaya marka canaanta imika aan wax canaanana maaha canaan ku dhacaysa agaasimo waaxeedyadii iyo waa canaan ku dhacaysa ciddii boolisiga samayn lahayd ee deetana ku dabageli lahayd sidii wax loo qaban lahaa runtii way fiican tahay in horta wax la bilaabaa ugu yaraan in wax la bilaabaa waa arrin aad u fiican inkastoo aanu dhaliishanahay aanu leenahay sidaan horeba u sheegay gobolladii uma dhanna haddana intaa aynu arkayno wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu weli maan arag wasaaradda oo ka hadlaysa garoon la qaatay waxaa igu maqaalaa bardhoweyd waxaa yimi waddanka bilo rafle guuleed oo 40 sano ka hor maayarka ah Hargeysa wuxuu sheegay wax kale iska daaya garoomadii beriga oo Hargeysa ka tagay in qaar la cunay markaa Hargeysa waxa ku noolaa 200 kun oo qof maantana 1 milyan baa ku nool wasaaraddu waxay leedahay ciyaaruhu role bay ku leedahay in maadaama waddanka ciyaaraha uga mas'uul tahay meelaha lagu ciyaarayna iyada ka mas'uula ama kala hawl gasho wasaaradda hawlaha guud ama dawladaha hoose dalka ee ku mamay inay dantii guud oo barabixiyaan dawladaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu role bay ku leedahay inay ogaato xaafad kasta oo Hargeysa ka mid ah waa inay yeelataa garoon maaha garoonkan stadiumkan Hargeysa iyo mid kale iyo laba Hargeysa kuma filla hal garoon oo roog la dhigaa anuu ma oran karo wax qabad lagu amaan karo wasaarad ama dawlad waxay ahayd xaafad kasta ama degmo kasta oo Hargeysa inay garoon u gaara oo lagu ciyaaro oo wareegyada lagu martigelin karo ama gobolada ha noqoto ama degmooyinka ha noqotee la sameeyo oo roogii la dhigo servicekii loo sameeyo oo dhalinyaraduna deetana ay ku ciyaaraan oo ciyaaraha kor loo qaado waxyaabaha wasaaradda aan ku dhalishan waxa ka mid ah naadiyadan ka jira degmooyinka iyo gobolada oo kale haddii la dhiirigeliyo oo ay wasaaraddu intay ay xil qaanto ay calaa shirkad qasab ku dul saarta naadi oo tiraahdo naadiga adaa ka mas'uula adigana ha ku sidii horeba u dhici jirtay way sameeyaan marka qaarkood adigana ha ku xayisiisa ku noqoto dhalinyarada dhiirigelin ha u noqoto kaba oo expenseskoodii hawlahooda ha la kabo dabadeedna waqtigan la sameynayo wareeg la qabanayo haddii la yidhahdo naadiyadii degmooyinkii waxba kama dhisna oo inta Hargeysa loo yeedha ceeb bay noqonaysaa laakiin intaan wareegaba la qaban haddii laga sii hawl galo from the base laga soo bilaabo la horta degmada badhan imsa naadi baa jira yeen u geynaa naadiyadaas oo aynu dusha ka saaraa oo aynu ganacsataa jira gobol walba iyo degmo walba ka soo jeeda ganacsatada iyo shirkadaha wasaaradaha oo kale meel walba waxay qaadan kartaa naadi inamadii markay helaan wax yar oo hadday doonto salary baa noqotay lagu ciyaaro waxay noqon isu bedelaysaa courier ama shaqay isu bedelaysaa in kubadda la ciyaaro wax laga yaabaa inaan imika qofkii kubad ciyaaro waalidkii baa maxaad kubad ku falaysaa kubaddina wadigan arkay maanta adduunka waxay maraysaa lacagta ugu badan ee kamid sameeyo kubad baa laga sameeyaa geeskeena Afrika waxyaabaha ilaahay gaarka hibadii noo siiyay waxa kamid ah orodada oo kale wasaaraddu hadii dhiirigeliso oo ay wasaaraddu sameysay academic lagu tababaro dhalinyarada wixii hibo orada leh la yiraahdo bal halka kaale iska diiwaan galiyo dhowrkii bilood mar dhalinyarada magaalo kasta gaar tababar loogu orod loogu qabtay ciyaaraan waxa ka soo baxay Mo Farxyo waxay noognahay inay yaro Mo Farx la yiraahdo Soomaaliland u dhashay ayuu Ingiriiska tagay oo dawladdu ba faantay hibadiisiyo waa ka maanta magac u soo Ingiriiska aan weligii loo soo hoydin waxa weeye barigan Afrika hadaynu nahay orodadaas oo kale aan baynu ku nahay oo dadka environment kan ba jaangooya
waxaa la helayaa dhalinyaro fara badan oo dee muufaaraxyo badan baa soo baxaya haddii lagu dadaalo ciyaartoy fiican ayaa soo baxaya adduunyada taga waxaan xasuustaa waqti wasaaraddu waqtiyadii daahir yaalin ahayd baan jecelahay haddana qaldanayn in mar loo dirayba dibadda oo Real Madrid la soo sameeyeen tababar waa dadaal wasaaraddu gashay bay ahayd haddii wasaaraddu dadaasho naadiyada waaweyn ee Liverpool iyo dhallinyaradii daawanayaan waxbarashadii iyo ku seegeen hurdadiiba ayay tababar u soo sameyn karaan oo akademiyadaas caawin karaa naadi waliba imika wuxuu jecel sida Arsenal oo kale Liverpool oo kale haddii laga hawl galo inkastoo inaan dal ictiraafsay ahayn la yiraahdo halka waxa jooga dhalinyaro u baahan ah laga caawiyo wax badan baa loo qaban karaa marka waxa weeye in kor loo qaado ciyaarihii oo markuu wareegso la qabtunayaan gobolada xasuusan beeska laga soo bilaabo degmo kasta naadiye loo sameeyo bahasha la dhiirigeliyo annaguna xisbi ahaan waa inaanu qaybteeda ka qaadanaa oo aanu dhiirigelinaa dhalinyarada oo aanu u sheegnaa habka kaliya laga baxay qabiilka iyo kala socnaanta inay tahay intii kubadda xiisaysaba kubaddii loo sameeyo ka baaska xiisay baaska lagu dhiirigeliyo ka orodka xiisay orodka lagu dhiirigeliyo dadku ay kilaabis noqdaan in waliba intay xiisaysun bay ku dayan lahayd marka waxa weeye maanta nasiib wanaag wasaaraddu dee waqti fiican bay haysataa 7 bilood ugu horeysay baa fadhidaa uu ku mahadsan intii uu noo sheegay ay qabteen waxa weeye inay ka kordhiyaan hawsha oo fadhiga laga kaco oo ciyaarta la dhiirigeliyo oo degmo walba ugu yaraan laga hawl galo sidii bal dadkan dhulkan danta guud ah dhamaaday dee loogu dooni lahaa in meel lagu ciyaaro oo ay xaafad walba u yeelato intaynu haysananayno sii horumarino dee fayrkana inaan ka teginay gobol iyo degmaba aanay Hargeysa wax walba isku koobin ma garanaysaa oo goboladiina aynu wax ka siino aynu tusno qofka ku dhashay koona ilaa koona dalka in haddii uu dee diyaar u yahay inuu ciyaaro inuu ka qayb geli karo tartanada Soomaaliland ayaan ku soo dhaweynaya aan ku noqdo agaasime maxamed nuux agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasime sidaad arkayso ay iftiimiyeen labadan dhalinyaro waxaa tahay raggii wasaaradda la soo bilaabay heerkeenu marayno 27 sano oo qaar yooni sidaas sheegtay ciyaartooyadu ka mid ahaa heerka laga soo bilaabay iyo heerka ay maanta marayso waxaad ahayd raggii gacanta ku hayay alxamdulillah maanta wuxuu marayaa sportskeeni garoomadeena iyo diyaarsan nabadgelyada aynu haysano geeska Afrika meelaha qaar aan ka jirin sida ay sheegeen wasaaraddeenu markan la eego adoo nooga jawaabi doona qayb marketina oo shirkadaha oo kale ku xukunta Telesom oo kale ay Hargeysa maalgeliso shirkadaha kalena ay gobolada maalgeliyaan si loo helo complete ama balance goboladii kale sidaad sheegtay iyadoo ay dhalinyarada ku ciyaaraya magaca goodir duulista iyadoo ay ka kooban yihiin gobolada ka yimaadaan iyadoo haddana inankii kale gobolka joogay Janiska uu heli waayay inuu Hargeysa yimaado si loo qanciyo oo isaguna uu helo mid kan la mid ah uu helay maxay idinka qorshaysan gobolada se maxay tahay codsiga dhalinyaradu ay soo dirayso maxaad kaga jawaabi lahayd agaasime bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku yar horeynayaa yooniso xagga siyaasadda u yar beedho wasaaradda horta waxyaalaha farsamada ah ee wasaaraddu ay ku shaqeyso waxa sameeya sidoo Cabdiqani sheegay waa dadka wasiirka iyo agaasimaha guud wixii ka hooseeya ee waaxaha kala duwan haddii qorshe wasaaradda loo sameeyo agaasimo waaxid qorsheynta bay leedahay waaxda ciyaaruhu agaasimo ay leedahay maamulka sidaas leego budgetka iyo nidaamka iyo wixii isaga dejinaya dhalinyaradu sidaas leego waa ogtihiinoo wasiirka dee siyaasad ahaan baa meesha loo keenaa waa policy laakiin dadka ka hooseeya ee la shaqeeya waa farsamo garoomadii baa u baahan iska dhaaf tartanka la qabanayo garoonku haddaanu cabir dimensionkiisa aanad cabirin ma sugmayo marka ka wasaarad ahaan waanu samaynay siyaasadda waa tan siyaasaddii dhalinyaradu wasaaradda ciyaaraha qaybta ciyaaraha waa kaa istiraatiijiyadii ama habkii maamulka waa kaasoo uu samaysan yahay kii dhalinyaradu siyaasaddii dhalinyaradu waa kan way samaysan tahay in dhalinyarada lagu maamulo waa kay dhalinyaradu xisbiyada ku soo galeen ee Cabdiqani iyo Yoonisba ku soo galeen wasaaradda awlkuntay oo samaysay inaan dhalinyaro maayar ka noqdo magaalooyinka haday Boorama tahay haday Hargeysa tahay haday Laascaanood tahay haday Berbera tahayba iyo haday goli wasiirada iyo agaasimayaashii guud ee baarlamaanka tahayba siyaasadda iyo fikirkan anagu sameynay ka wasaaradahan anagoo la kaashan dhalinyarada reer Soomaaliland ay ku yimaadeen marka wax weyn oo la qabtay taa horta in aragta waa mid qodobka labaad ee anagu ku daray wax weey xagga garoomada wadankeenu gegayahay lagu ciyaaro oo aan xitaa diir lahayn markaan wadanka soo galnay Hargeysa stadium uu dunsanaa yoon soo wad garanaysa wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu
iyadoo la kaashanaysa shirkadeena waaweyn iyo dowladdaba way dhistay roog baanay dhigtay marmar bay ku wareejisay gudihiisii waa aragteen quruxdiisa iyo nidaamkiisa booramaa sidaas ilaag loo sameeyey gabiile baa loo sameeyey berberaa loo sameeyey oo foundationka hoose laga soo bilaabo garanaysa oo rooggiisii dul yaalla burcada uu ka dhawaajiyey waa markii afraadee la hagaajiyo rooggii baa dul yaalla maanta ceergaa waa sidaas ilaag laascaanood waa aragteen tartan baanu ka soo qabanay waanu furnay cabdi bilaal loo bixiyey weligeedii yaallehe dowladda soomaaliya aan ka samaynay waxaasoo garoonuhu rooggi yaallo ilaa dhahar baanu ka dhisnay ilaa waxaanu ka samaynay ood weyne oo garoomo standard oo gobollada lagu qaban doono marka xagga feerka aynu ka hadlaynana ciyaarihii gobolladii ugu dambeeyey feer baanu qabanay tusaale yar baan siinayaa waxaan kusoo qabanay boorame isreebreebkii 7 gobol burcana waan kusoo qaban kalaabiska xagga kalaabiska haddaan u imaado kooxaha hargeysa ka jira inuu inankii adduun helaabaa loo baahan yahay buu cabdiqani yidhi kooxaha hargeysa ka jira maanta tartanka loo qabtay 70% mushaar bay qaataan mushaar bay qaataan ku filan oo anugu kaan qaato kala gobolada way ka jiraan booramay ka jiraan dowladda hoose ka jiraan goodir baa ka jirta sharaa'iga u ciyaaraano ka jiro lacag lagu qaataa berbera waa sidaas ile gobolka saaxil burco waa sidaas ile laascaanood waa sidaas ile waxaynu u baahanahay in motivation la sii sameeyo dhalinyarada la sii dhiirigeliyo oo maanta kombaniyo waaweyn oo limit ah oo lacag badan haysta ma jiraan waddankeena degan way yar yihiin dahabshiil iyo telesom iyo som cable baa ugu weyn nimanka kale waa personal dee baayac mushtara nimanka kale naqaana kombaniyada waaweyn iyaguna mar walba dhaqaalaha waxaan uga baahano waan ugu mahadinayna waa nala barbar taagan yihiin maanta ba tartan ka socda dee shirkad baa maalgelisay telesom kuwa kalena horena way u soo maalgeliyeen oo garoonka weyn waxba garoomada waaweyn waxba ka dhiseen dhalinyaradan way dhiirigeliyaan tartamada soo socdaan diyaar bay u yihiin waanaanu ka ballansanahay markaynu ka hadlayno maamulada iyo nidaamada garoomadii hore waa ogtihiinoo waddankeenu dee wuxuu ka soo doogay dagaal sukay dhibaata aynu ku dhacday waddanka waa laga qaxay markaynu waddanka ku soo noqonnay waxaan anigu qiyaasaa dadkii waddanka ku soo noqday may ahayn intooda badan dadkii magaalooyinka u dhashay waayo anigu waxaan xaafadda shacabkan deganaayo waan ka baqayay dhulkaa bannaan haddaan dego dee dowladdii lahayd baa kuu qabsanaysa waan isla sifaday doonaanba dhulka ha ku baxaan laakiin maanta caasimadana garoomo inugu filan waa ku yaalaan oo waliba standara qaar private oo dadku leeyihiin 40 garoon baa hargeysa ku yaala 40ka garoon baa cashuur dhaaf baan u samayn inaan walba markuu noo yimaado dekadaan u raacin oo kala soo saarin dhalinyaradeenna baa ku nasatay odayadii baa ku ciyaara marka waxaynu u baahanahay war dhalinyarada inuu dhinacyada qabano xisbiyada mucaaradka annagu ma ogolin marnaba waa cod dheer iyo cod gaaban baa ku sheegayna inaanu xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka midnaba annagu inaanu dhaleecayno waxaanu leenahay 3 xisbi ee qaran ee waddanka jira kulmiye iyo ucid iyo wadani wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waa u sameeyeen waxaan cod dheer ku sheegaya 3 xisbi midna ma qaban kara tartan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha u igman itaalkay doontaba ha lahaato waxaanu leenahay tartamadaanu qabanayno gobolladana waa ka qabanaynaa degmooyinkana waanu ka qabanaynaa hargeysana waanu ka qabanay oo caasimadii waddanka oo nationka kala barbaa ku noole nagu taageera haddaan soo noqdo xaggii orod aan weligeed maca Soomaaliyada maca ka dhicin Djibouti waynu halkan ku qabanay marathonka u dambeeyay oo dhowr iyo 20 qof oo cadaan oo caalamka ka orda ay ka soo qayb galeen haddaan deyndaa laga qasanaynin marag baa u haydan bahda sportiga tiin kullu waa eegaysan inaan naga soo qayb qaataan ayaa u fiicnayd wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu mar walba waxay u tafaxaydan tahay in dhalinyarada dhiiri geliso magacay wasaaraddu ku isman tahay waa dhalinyaro ciyaaruhu waa marka labaad wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha loo dhigo marka dhalinyarada 70% waddankeena inaynu dhiiri gelino sida hore u sheegteen waa ku mahadsantihiin waan idinku bogaadinayaa inaynu dhalinyarada barbar istaagno oo wax la qabano oo sida ay maantaba dhalinyaradu ay fiilkii siyaasadda u soo galeen inay fiilka ma garanaysaa maxaan ku dhahay baa mushtarka iyo dadka dee waddanka lagu soo hirtay inay ka mid noqdaan diyaar baynu nahay inay ciyaaraheenu noqdaan ciyaaro sumcad leh oo ma garanaysaa waddanka ciyaaro fiican ay ka qabsoomaan in cid badan ku soo casuuno waa nagala qayb qaadanaysaan diyaarna waanu nahay waxa ugu dambeeyay oo halkan ku soo casuunay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Ghana
oo ahna gudoomiye ku-xigeenkii xidhiidhka kubadda cagta ee CAF halkan aanu keenay isagii xubno ka mid ah waxaan tusaynay waddankeenu siduu u yahay waddan dee horumar samaynaya xidhiidhkeenu lama aqoonsan xidhiidhadeena jira marka in xidhiidhadeenu ciyaaru iyagaas wada FIFA wada laakiin inagu inaga isu tashanayoo ama shicibkeenu ha bixiyo ama shirkadeenu ha bixiso ama dawladdeenu ha bixisay inaga hawlaha ciyaaraha wadana weli cid inaga basay wixii aynu lahayn aynu xaq u lahayn FIFA bixinaysay Soomaaliya weli qaata maxkamadaanu xitaa la tagnay oo aanu ku wadnaa oo doonayna inaanu ka noqono gooni oo wax iyaga aanu helno dacwad baan ku wadnaa xitaa dadkeena reer Soomaaliya dibadda jooga aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hawsha ay nala wada waan dhiiri gelinayaa isaga nimanka jaamac iyo nimanka maxaan ku raahdaa Rashiid Cabdi iyo waa niman hawsha ayaguna nala wada ciyaaruhu orodada oo kale mesela wadan dal ictiraafay manihin waxa jooga dad maxaan ku talent oo ciyaareen talent oo jaamac karaacin ka mid yihiin tartamadii ugu dambeeyay tababar bay u sameeyeen dhalinyaro fara badan baa soo baxday dhalinyarada markay soo baxdo inaynu iibgeynaa baa loo baahan yahay oo inankii meel tago dhalinyaro fara badan baa la iibgeeyay oo qadar u ordo oo maxaan ku dhahay imaaraadka u ordo reer Soomaaliland ilaa inaga ictiraafkiiba waliina hakanaya marka ictiraafku yimaadana talent baynu u nahay orodada qaar ka sii wanaagsan oo nidaamsan baynu insha Allah dadka naga dambeeya anagu deemka waanu ka sii soconaabay tel ciyaarihii ay qaban doonaan oo horumarin doonaan ciyaaruhuna waxay u baahan yihiin inuu bees ahaan soo dhisno qabyaalada lagu la dagaalamaa muqaadaraadka lagu la dagaalamaa balwadaha xun baa lagu la dagaalamaa tahriibka lagu la dagaalamaa dhalinyaradeena reer Soomaaliland waa dad wanaagsan oo ku dhaqma dhaqankaynu lahayn suubanaay diinteena islaamka ixtiraam fiican oo haya dadkeena marka waxaan ku dhiirinayaa ciyaaraha gobolada iyo degmooyinka iyo waddanka oo dhan waan ka qabanaynaa war dhaliishu marka lagu leeyahay dhalay oo halkaasaad ka qalloocdaa lagu toosinayo lama diiday marka wax la qalloocinayo ayaa la diiday qallooca aynu iska deynaa wallahi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh agaasimaha aad buu mahadsan Maxamed Nuux aan ku noqdo inagoo barnaamijkeeni gabagabadiis ka soo gali doona aan ku noqdo Yonis waxay tahay siyaasadda xisbi ahaanidii ka qorshaysan mase ma ku raacsan tahay go'aanka ah agaasimuhu inaad taageertaan oo garab istaagtaan wasaaradda iyadoo qaadanaysa sida uu ka dhawaajiyay Maxamed Nuux meel walba toosan ama qalooc kasto yimaada inay qaadanayso wasaaraddu idinku xisbi ahaan ma garab istaagi doontaan wasaaradda mana tusi doontaan waxyaabaha qaloocda idinkoo ka wada fadhiisanaya toosinayana qalooc kasta soo dhaweys bismillaahir rahmaanir rahiim doorta waa muhiim inaanu taageerno qaranka iyaga ka mas'uula laakiin markay waxba qaban waayaan annaguna qaranka qayb baan ka nahay hadal Maxamed Nuux idhi baan doonayaan xaqan ka cadeeyo ma qaban tartan fiir marka horta xisbi qaran baan nahay garoomada aad maamushaan kuma qabanay imka tartanaanu qabanayo imka dhowr cisho ka horba tartan ma soo gabagabeynay oo mar walba tartanaanu qabanaa deewana nognay meelaha maamushaan inaan permission uma haysano anagu inaga hade furi haysta oo laakiin public ah private ka waan leeyahay dadku leeyahay shacabku leeyahay ayaan dadkreysana lacagteeda dhalinyarada anoo waxba ka doonin motivation u sameeyna oo doorkii wasaaraddu qabtay inta badan gobolada dawaan marnay 6 gobol iyo degmooyinka dalka dhan waan marnay xaqiiq garoomada dalku way hooseeyaan way baabaasan yihiin way dunsan yihiin marka laga tago garoonka Hargeysa waliba iska xidhan inta badan oo aan tartan lagu qaban waxaan jecelahay la xisaabta man jirin wasaaradda dhalinyarada yar oo maamulka madaxweynaha uu sareeyaa hadda 2015 baa garoonka Burco iyo ka Berbera iyo ka Cergaabo roogoodii la yiri waa la dhigay oo miisaanadii 2015 ku jiray ilaa imkana lama dhigin sidoo agaasime Maxamed Nuux noo sheegay waag yaalaan baa la yiri Berbera waan tagiyo saasaan soo qaado oo go'ay ki Berbera cadceed oo kulay marka meel buu iska yaalo store buu ku jiray waan soo qaado oo go'ay Burco waxaan soo arkay in meelaha qaar laga dhigtay decoration hodhalada qaar liiguri waa garoonka lagu talagalay Burco Cergaabo waan tagay garoonkii roogi meeybaan roogi magaaladu yaalaba liiguri waxaana lagu talagalay in garoonka la dhigo haddii carqalad iyo dhib jirto carqalad ida agaasime waxaan jecelahay de meelaha qaar xaqiiqda laga sheega fiican haddaan niraahdo inanka Burcan garoonkii roogi uu yaal aan la dhigin de wax weeyaan anaguna fadhiyo soo arkay de wax weeyaan dambiil aan noqonay marka on saxaya oo saxiid bay iga taynaan
burco roogi oolin berbere oolin ceerigaaba oolin waana de waa nusqaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha kuwan maaha waa kuwii hore maamulkii hore ayaa dee qeyb ka ahaa waayo 2015 miisaaniyadda lagu daray aniga bid baan ula socdaa ciyaaraha dalka iyo nidaamkooda marka de xisbigana u qaabilsan marka waxaan u arkaynaa anagu inay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ama tii hore ahaata ama tan ahaata xisbiga kulmiya ka dhashay waxaa ka imaada mas-uuliyiintu marka laga imaado dee maamulka hoose uu ka mid yahay maxamed nuux iyo nidaamka hoose dee dhammaan agaasimo waaxidada iyo tiimka hoose aan iyagu dee siyaasi ahayn laakiin technicianisa marka laga imaado waxay ka imaadaan siyaasadda xisbiyada ku shaqeeyaan xisbiga xaakimka markaa imaada laakiin uu agaasimaha iyo wasiirku ugu sarreeya waxay ku shaqeeyaan aragtida xisbiga guuleysta ee markaa dalka hogaamiya agaasimayaashu ma tagaan waa beerol waxay joogaan qaranka u shaqeeyaan kii imaado u shaqeeyaan xisbiyada qaranka waa u dhex laakiin siyaasadda qaranka waxa xisbiga ka soo qaada ee wasaaradda keena waa agaasimaha guud iyo wasiirka oo digreeto madaxweyne kusoo baxa kuwaasay tahay inay siyaasadda waxayaan marka cumuuman xisbiga kulmiye muddadii hore iyo muddadan imika 7 bilooda waa faashil ciyaaraha ay siyaasadoodii anuu maamulka hoose dhaliilay haddana siyaasadda xisbiga kulmiye ciyaaraha ee dhalinyarada fashil bay ahayd waayo muddada aan soo sheegnay ciyaarihii lama qaban garoomadii dee waa taa wala musuqmaasuqay oo dee miisaaniyad baa lagu daray dee lamana dhigin waxay ahayd in madaxweynuhu aan u sheegay maalintii dhow aan la hadlay madaxweynaha oo baaq baan u dirnay waxaan ku yidhi madaxweyne kuwii garoonka burco iyo ceergaabo iyo berbera miisaaniyadoodii lagu daray ayaa haddana lagu soo daray iminka odoroskii miisaaniyadda 2018 golaha wakiilada ansixiyaan garoonka burcaa ku jira kii berberaa ku jira kii ceergaabaa ku jira horena 2015 baa loo soo iibiyey baa la yidhi waa la geeyey lamana dhigin haddaan xaqiiqdii runta la sheegin dee waxba inooma hagaagayaan marka waxa weeye war meesha qalad baa dhacay ciddii qaladka samaysay lalama xisaabtamin waxa weeye waa in la sheega la waa khaldanteen ciyaaraha mid labaad baan ku darayaayo muhiimadda aan u leenahay dhalinyarada gobolada ha loo dhiga tartano waa run inaan burco ka yimid baa Hargeysa jooga ku ciyaara oo ama waxbarasho u jooga ama si kale u soo guuray laakiin xuquuqdii inanka burco joogay inankan ma matalo inanka berbera jooga ka Hargeysa jooga ma matalo inanka boora ma jooga ka Hargeysa jooga ma matalo waxaan jecelahay tartanka ay maanta dah furaan waa tartankii ugu horeeyay de qalad iyo doldoloolu leeyahay muddo yarna way joogaan maamulku 7 bilooda iyo madaxweynuhu iyo nidaamkiisuba inay hoos u eegaano waxay doonayaan hoos iyo xuuraan ugu sheegnana aan ugu sheegno waxay khaldaan ay diidaan inaan public u sheegno daanu mandate baan u haysanaa in wax sheegno shati baan u haysanaa xisbiya qaran baan oo sida madaxweynuhu qaranka madaxweynuhu baan oo xisbiyada qaranka u marka mandate baan u haysanaa marka de waxa weeye garoomadii agaasime waan kuugu celinayaa kii booremana uu dunsan yahay kii berberana uu xidhan yahay roogiisu uu xisay kii burcana boodhka dul huganaya kii ceergaa waa sidaa laascaanoodna qayb baa la sameeyey qaybtii kalena waxa lagu la sameynaya oo inugu badaqaadina kuwa sameeysan Hargeysa stadium inuu sameeyay laakiin de waan lagu ciyaarinay muddooyin badan baan lagu ciyaarinay de ciyaarihii iniga mas'uulka ah waxay anagu inima qaadan shati iniga ma qaadan ciyaarahan qabanayno anaga xor ah waxaan u sameynaynaa dhalinyarada Soomaaliland oo dhan kuwa maanta sagsaagteena wax ka khaladeen oo nu qabanayna insha Allah ta'ala anagoo agaasima kugu soo noqon doorka ku siin doona Cabdiqani aan siiyo Cabdiqani maxaad kaga duwan tahay wasaaradda iyo xisbiga wadani se maxaad tusi lahayd maxaad se ku soo kordhin lahayd ku soo dhow waxa horta wanaagsanaan lahayd halkan in wasiirku caawan la fadhiyo ama wasiir ku xigeen bahalku dhacday wasiir ku xigeenka ama beeraadka ama agaasimaha guud agaasima maxamed nuux su'aal mar hore ka hadlay markaan ka hadlay qaabkii siyaasadda wasaaradda wuxuu inoo sheegay inuu isagu warqadan horta hal ka hadlayso siyaasadda wasaaradda ciyaaraha in iyagu sameeyeen taa waxaan ka leeyahay waa arrin aan filin sababtoo ah wasiirku ma aha siyaasad markaan leenahay dadkiina waxay u arkaan in la leeyahay reer hebel baa lagu raali gelinayaa ma aha reer hebel baa lagu raali gelinayaa wax wasiirka loo magacaaba waxaan xasuustaa maalmaha ka mid ah Musabix Cabdi madaxweynaha qaranka ayaa dhalinyaro madaxtooyada ku casuumay
dabadeedna kaftan hadal ahaa baa jiray oo wuxuu yidhi idinku qorshaaba noola timaadeen anaga wasiirada waraaqa cad bay noola yimaadaan waa nasiib darro wasiirku marka wasaarad loo magacaabo waa inuu siyaasadeeda isagu madax ka noqdaa u dejiyaa wasiirku markuu siyaasadda wasaaraddiisa dejiyo ee uu jaangooyo isagii guddi u wataa fulinteedana waxaa iska leh maamulka hoose waa inay gacanta maaha maamulka hoose inay iyagu siyaasaddii fuliyaan kadibna waa inuu evaluation iyo monitoring ku sameeyaa dabagal oo la isla xisaabtamaa qorshihii ma fulin mise ma fulin taas waa mid tan kale ah hargeysa garoomadu way ku filayaan anigu waxaan aaminsan hargeysa inaan garoomadu ku filayn marka hore wasaaraddu waa inay assessment samaysaa hargeysa inteen laga population ku nool ereyadeedu intee oo hektar bay ka kooban tahay inteebaa garoon u dhow isugu jiraa garoomo intee leg baa loo baahayey garoomadii baa u kala baxa a iyo b iyo c d waxa weeye qaar heer caalamiyahoo dee haddii maanta ay liverpool noo timaadee ku ciyaari karto iyo qaar naadiyadeenu ku ciyaari karaan iyo qaar naadiyada hoos ku ciyaari karaan iyo qaar caruurta ku ciyaarto intaba waa garoomo waddanka looga baahan yahay taa waxaan aaminsanahay inay ka maqan tahay siyaasadda wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada waana wax looga baahnaa inay wax ka qabtaan garoomadu waxay u qaybsamaan siduu carab ku dhuftay agaasimuhu public sector iyo private sector halkaa inaga dhig private sectorku waa waxa weeye profit oriented weeye faa'iiday ka raba wax kasta ay sameeyaan ninka garoonka sameeyey dee bilaash habeena dhalinyaro kuma ciyaarsiiyo calaa qof $2 $3 buu ka rabaa waxa weeye dadkana waa cashuur bixiye qofku markuu cashuur bixiyeyna waa inuu service helaa servicekii qofka cashuur bixiyey uu xaq u lahaa inuu helo waxaa ka mid ah inuu bilaash inanka yaree dugsiga sare dhigtaa ee nusaacaha laga yaabo 5,000 oo shilin xaafadooda ka qaataa garoon $2 ma kiraysan karo xaq wuxuu ugu leeyahay qarankiisa inuu garoon bilaash oo ku ciyaaro rugiyaal oo siiyo oo waliba xaafadooda ku yaala taasina waa sabab cashuurta loo bixiyo waxa weeye hargeysa 40ka garoon ee ay leeyihiin dadka private-ka ah inama quseeyaan inagu public sector baynu wada leenahay oo la doonaya dalka oo dhan iyo dadkaba inuu gaarsiiyo service delivery loo samaystay marka waxa weeye su'aal kalena waxaan rabaa inaan halkan ka weydiiyo wasiirka Soomaaliland horta waxa halka dhigay oo baabiyey oo haba yaraatee dhaqaalaha yar ee qaranku uu leeyahay meesha ka saaray wasaarad baa tusaale ahaan soo qaadanaysa miisaaniyadda loogu darayaa tusaale ahaan haddaan soo qaato intaasoo gaari ama intaasoo dhisme inay sanadkan samayso sanadkaa xiga haddana way la socotaa waxay ahayd wasaaradda miisaaniyadda la siiyey in lagu sameeyo monitoring evaluation iyo accountability in wasaaraddu samayso oo miisaaniyaddii sanadkii hore laga xisaabtamo 10 guri baa kugu jiray 10 garoon baa kugu jiray miisaaniyaddii hore maxaad ku qabateen waa inay sheegaan wixii soo hadhay aanay isticmaalin ama ay surplus galaan ama ay deficit galaan yiraahdaan way nagu filaan weeyeen intaas aan dhisno way nagu barqooday waa in la xisaabtan saxa cidda la xisaabtamaysa ugu horeysana waa golaha 20 sano fadhiya sharci darrada ku fadhiya ee baarlamaanka ayay shaqadiisa ugu horeysa tahay wasaaradda maaliyadda shaqadeeda tahay madaxweynaha shaqadiisa tahay in xafiis madaxweynaha u gaaro wasaarad kasta la xisaabtama in la sameeyo imika waxa weeye su'aashan weydiinaya wasiirka mar haddii wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu ay leedahay budget aanan doonin halkan inaan ka sheegay intuu yahay laakiin aan ogahay maxaa budgetkii lagu qabtay mar haddii garoomada cusub oo la dhisayna aanay jirin tayar la dayactirayna iyo rogagii la soo iibiyeyna la leeyahay shirkadaha ka qayb qaatay oo xitaa wareegga maanta la qabanayo kii koowaada ee 3 sano la qabtaa la leeyahay shirkadda Telesom baa qabatay war lacagtii miisaaniyadda muxuu wasiirku ku qabtay su'aasha wasiirkan weydiinaya halkaas aan kaga baxay waxa kale oo aynu u baahannahay xisaab celin inaan cid walba samayso haddii waxa weeye 10 sanadood oo isku soo xigta wasaaradda ciyaaraha ama wasaaradda waxbarashada iskuul loogu daro tadabana aan la xisaabtamin mise iskuul baa dhistay iyo maxaa ku qabatay dawladda keena dhig waxba ku dhacaya policy formulationka ana waxa iska leh madaxda sare ee siyaasadda wasaaradda wixii ka hooseeya wasiirku waxa weeye middle level management iyo waxa isugu jiraan low level management waa qoladii shaqada qabanaysay gacantooda ku qabanaysay wixii la soo jaangooyay iyo qoladii fulinaysay arrinta ku dabagelisay in la fuliyo ay u qaybsamaan laakiin siyaasadda wasaaradda anagu ismaan lahayn waxa jaangooya low level management ama middle level maamulka dhexe ama maamulka hoose wasaaradda aan ku noqdo agaasime maxamed nuux agaasime maxaa idin ka qorshaysan
maadaama aad iminka furteen tartankii ugu horreeyey intii dowladda cusub joogtay tartan si rasmi ah oo heer caalami uga bilaabma Somaliland gaar ahaan caasimadda maxaa idinka qorshaysan muxuu yahay ma qaban doontaan xidhiidho wareegyo joogto ah gobolada kale maxaad soo qaban doontaan ma mid guud marka kale laga yimaado ka gobolada bal adigoo noogu noqonaya siyaasadii wasaaradda adigoo caawa nagala jooga wasaaradda kusoo dhow agaasime bismillah intaanad su-aasha adigu aad weydiisay aanan ka jawaabin baan waa dee xisbiyadii mucaaradka ahayoo kolley mucaaradku waa looga baahan yahay dee inay dhaliisha dowladdu ay leedahay sheegaan laakiin inay dhaliishu noqoto dhaliil indha caafimaad qaba lagu eegayo haddii aanad indha caafimaad qaba ku eegin arrinkaa waxay noqonaysaa dee inaad meel qaldan marto waxaan ku yar horanayaa Yoonise markuu leeyahay Yoonis ciyaara annagaa qabanayna waxay ka dhigan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay ka mid tahay dowladda waa institution dowladeed haykalkeedii qaabsmeedkeedii bay leedahay iyada ciyaaraha loo igmado tusaale yar baan idin siinayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu cashuurta ma qaadi kartaa waa maya cashuurta ma qaadi kartaa wasaaradda waa igmado iyadoo hadda dowladda ka tirsan waa xisbi qaran ciyaaraha inuu qabto xaq uma laha waa inuu aniga permission-ka iga helaa waa inuu aniga warqadii soo qoraa hadduu mid private ku qabanayay hadduu public dowladdu leedahay ku qabanayaba private ka public ma ana xukuma ana niisanka siiya public marka dowladda horta iyana haykalka dowladnimo indhaha ka ridin xagga waxaan u soo noqonayaa shuruucdu masalan wasiirku waa policy waxaa laga yaabaa wasiirku in 2 bilood joogo dastuurka dalkeena leeyahay 97kii baa la dejiyay wixii lagu soo daray ama wixii laga bedelay dooda ka dhacdo waa aragteen baarlamaanka ciyaaruhuna waa shuruucdooda marka la dejiyo sidaa adduunyadu ay ula socoto kolba wax isaga bedelayaan baa loola socdaa guddi baa dejisa farsamo shirar baa loo qabtaa iyo seminaaro halkaasaa la isugu yimaadaa muddaa la soo wadaa imanka siyaasadda dhalinyarada oo kale waxay hirgashay waqtigii kulmiye qabsaday wuxuu soo jiitamayay ilaa aas-aaskii waddanka markaynu soo galnay ayaa la waday intaasoo goor baa kulamo loo qaban jiray hay-adda ballaadhana UNICEF la yidhaahdo ayaa dadka xitaa arrimaha supervisionka ka iyo dadka wax ku dareeyay oo darasyada iyo ururada dhalinyarada iyo nidaamkaba budgetka UN-ka weydiinaysay marar baa Nairobi lagu soo qabanayo Jordan baa lagu soo qabtay Djibouti lagu qabtay Somaliland baa lagu qabtay intaasoo goor waa manhaj la dejiyo marka kaasi ma aha inaynu niraahno wasiirkii muxuu qori waayay warqadii hore daraaf ma soconayso shuruucduna waa la mid xeerarka shuruucda de xidhiidhada samaysta wasiirku waxba kama yaqaan xidhiidhada waa siyaasaddu ku hagayaa waa laga soo qayb gelinayaa fikirkiisu ka dhiibanayaa wuu u furaya waana u xidhaya dabadeetana dadka hawshan mihnadeeda ay tahay ee waddanka ku nool oo dhan baa la isugu yeedhaa sameeyay hadday siyaasadda ciyaaraha tahay iyo hadday xeer hoosaadka tahay iyo hadday dastuurka tahay iyo hadday dhalinyarada tahay waxaba dadka aqoonta u laba keena waana wax beysahoo inoo yaallo ciddii timaadaaba xisbigii yimaadaaba halkaas ugu imanaya waa wax yaalay oo beyskii oo foundationkii loo sii aasaasay garoomada markuu ka hadlayay Yoonis garoomada waa soo arkire gabiil 45 kilomitir bay Hargeysa u jirtaa gobolka Maroodijeex bay ka mid ahaan jirtay intaani gobolka gabiil noqon garoon standard baa ku yaala intaasoo garoono ka sii horeysana uu ku yaalaan dib hagaajin wada sameyn maalin walba tartama lagu qabtaa ka soo eeg horta markaad soo eegtay sawir ka soo qaadato ayaynu sheekaysan doonaa booramana waa sidaas leeyahay waxaan ku dhahay berbera markaad ka hadlaysay miisaaniyadda waqtigii lagu daray miisaaniyadda waxa loogu daray 2017 2017 waddanka abaara ka dhacay waxa ka dhacay maxaan ku dhahay doorashooyin miisaaniyaddii markaa noomay soo bixin wuu yaalaa garoonka rooggiisii nidaamkiisii wixii budget ninku lahaana waa la siiyay waxa miisaaniyadda maanta ku jira ee aragtay waanad arkina ee ku binixsan waa dhigida garoonka marka la dhigayo dhulkeenu مثلا leveling baa la sameynaya la biyo shubki baa loo sameynaya rabarkii baa loo soo iibinaya dimensionkii qiyaasi baa loo sameynaya rugle iyo cagafiyo baa garaacaya engineering baa ka shaqeynaya lacag baa ku baxaysa lacagta ku jirta hadaad aragtana lacag ka feenaysa ma saddexda garoonba hore miisaaniyad loo lunsaday oo ugu jirtayna ma jirtay dad baa loo diray oo bid baa la bixiyay oo guddiga qandaraasyada bixiyay sifadii sharciga ahayd bay mareen oo hadda xafiiska ugu timaado waa ku siinay waraaqo wada ki doonto marka
garoomadaasna waa inoo diyaar horena annagaa u dhisnay masalan gabiil annagaa dhisna wuu cusub yahay boorama waanu dhisna wuu cusub yahay roogana waa la dhigay labadaba berberena wuu cusub yahay oo la dhigo de waad garanaysaa berbero waxaa lagu ciyaari jiray dee iskuulkii ku yaal halkii ku yaalay dee wuu yaallaa isagoo aan mid noqonin buu yaallaa stoorna kuma jiray wuxuu yaallaa meel aan anagu dhiganay oo ay leedahay wasaaraddii oo dul furan oo aan waxba ku noqonayn rooga marka ka burcana waa sidaasi leeg burcana hawsheedii iyo nidaamkeedii wuxuu waa dhammaystiran yihiin imankana waa dhammaynaynaa ceergaabo waa sidaasi leeg laascanoodna waad soo aragtay marka waxa weeye waddanka waxbaynu ka qabanay war wixii aynu ka qabanay inaa indhaha isku qabanine sidii bisada marka loo dhigo hilibka loo tuuro indhaha isku qabanaysay iyo inaa indhaha isku qabana waddanka aynu daacad u ahaano oo ka marag furna wixii la qabtay xisbiga annaga xisbigii yimaadaaba ka wasaaraddeeda dadka jooga techniciankii uu noogu imanayaa lixajecladaan waddanka u leenahay aanu ka qabno u qaba oo waddankan horumarkiisa iyo nidaamkiisa ka shaqeeya oo dhalinyarada yaynaan qaybinin ee dhalinyarada markaynu meel ka soo wada jeedsanaabeen wax u qabanaynaa aan meel uga soo wada jeedsana baan idin leeyahay waana idin salaamayaa aad iyo aadna waan idin mahadnaqayaa kasoo qaybgalkaa igala soo qaybgashay inaynu halkan doodaa ku yeelano waa ciyaaro maaha inaynu siyaasadayno wasiiradan iyo dadkaynu ka sheekaynaynaa waa dad siyaasad ku yimi madaxweynaha innagaa dooranay waa madaxweynihii qaranka xisbiyada mucaaradka iyo kuwa maxaafidka iyo ummadda reer somalilandba waa madaxweyne wuxuu inaga mudan yahay maamuus iyo karaamo innaguna waxaynu mudannahay inaynu ummaddeena iyo dadkeena u shaqayno qacan qabano dhalinyarada maanta su-aashii baan usoo noqonayaa ayaanu tartanka u bilownay caasimadda hargeysa waxa ku nool baa la yidhaahdaa 1,500,000 oo qof waa half of Somaliland waa kala bar Somaliland tartanada aanu u qabanay horena waanu soo qabanay imakana waa u qabanayna waxaanu qabanaynaa gobolada oo dhan maxaan ku dhahay degmooyinkooda aanu qabanaynaa haddii orodta iyo haddii cagta iyo haddii basket hablii baan u qabanay xitaa oo imika tartan u dhamaado berberada imika u dambeysay kuleyl bay ahayd sheekh baan tartan ugu qabanay koobkii rabadaan tawageedano waddanka oo dhan ka qabanay ona wasaarad ahaan intaan tashanay annagu aan garanaysaa fiid gareyn garsoorka qabanaya dee waa ibni aadan fifa lacagna ma siisay leh dee wasaaradda iyo dawladda iyo dadkeedii shicibkeeda isu tashada oo training-kii buu u baahan yahay oo kabiib buu u baahan yahay oo daryeelkiisii buu u baahan yahay waxaasoo dhan bay dee capacity-ga intaa laga mugga intaa laga bay dee wasaaraddu haysa marka wasaaraddii haddaynu dhaliilno oo maalin walba innagu aynu isdhaliilno waxba socon maayaan waxaynu u baahannahay inaynu isgarab taagno waddankeena oo horumarino waddanku cadow badan buu leeyahay mandaqadan aynu ku nool lahayna waa xasaasi dadkeenuna maanta nabadgelyo ku naaloonayaan waanay wanaagsan yihiin inaynu horumar sii samayno ayaa loo baahan yahay horumarka ka qayb qaata baan leeyahay xisbiyada mucaaradka aad iyo aad u mahadsan gabagabadii barnaamijkeena oo kusii soconaynaa yonis uu ka dhawaajiyay agaasimuhu hadallo fara badan waxaad kusoo gabagabayn lahayn barnaamijka yonis aan siiyo kelmadaada maxaa tale iyo tusaale iyo si xalku muxuu noqonayaa lagaga baxayo idinkoo isgarabsanaya wasaaradda iyo dawladda sidoo kale iyo labada xusbi mucaaradka muxuu yahay xalku maxayse tahay taladu kusoo dhow yonis waxaan jecelahay kolay agaasimo dhowr kelmadood buu yidhi mar walbana hadalka nooga dambeeya waxaan xaggan ka sheegaynaa waxaanaan sheegaynaa maaha wax been iyo aan sali raad lahayn oo waxaan soo aragnay ma jirto iyo way jirtaa haddayn maantoonin ku jirnana kama baxayno nidaamka dee hadduu agaasimo inkuu ka dhawaajiyey ooba nidaam cusub hadduu naga hor istaagiyo garoomadii aan ku qabanay tartanada laydinka hor istaagi maayo ogolaashuu systemkii dawladnimo mara waa muhiim oo war cusub ay soo kordhiyeen anigu waxaan xaggan u taaganahay xisbiga una bulshada somaliland gaar ahaan anigu waxaan u taagan dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaana jecelahay mar walba waanu sheegnaa inaan ciyaaraha siyaasadeen oo ciyaaraha tamantaabiyo taakureynba wixii xisbi ahaan aan la qabanno laakiin waxaa walaal muuqata nidaamka ciyaaraha dalku inuu weli qurux badnay xaqiiq marka laga hadlay haddii garsoorkii noqoto hadday xidhiidhada u sheegaya agaasimo noqoto haddii wasaaraddii wasiirkii iyo agaasimayaashii iyo nidaamkii noqoto hadda garsoorayaasheena inanbaa jabuuti nagu soo tababartayoo markuu budget iyo nidaam waayey uu iska casilo iska tegayo si standard loo soo tababarayo wuxuu kala qayb galay dawlado waaweyn oo bariga afrika ee jabuuti kala qayb galayo oo garsoor u hayo oo garsoore si dee caalamiya loo soo tababaray waxay kuwa xaggeena jooga waa local weey maaha standard ma helino de waa kuwii anaga nagu barbartay ayuunbaa weli jooga laakiin dee garsoorayaal inay mid iyo laba ahaayeen aan jecelahay oo jabuuti la geeyey
dee warbaahintan ku aragnay way rasaani way sameeyeen markan wareysana waxay dhahaan dee aqoontan soo baranay wasaaradii loogama baahna iyo nidaam noocaas marka taas waa ta xiriirka haddaan kusoo noqdo xiriirku walaal feer maaha xiriirku feer maaha hargeysa kooxaha hargeysa oo keliya doortay marka waxay ahayd inay gobolladoo dhan doortaan xaqiiq feer maaha wadaagaasimiin way maqlayaa inay waxay joogaan qolada xiriirka laakiin ta siyaasadda waxa u haysa wasaaradda u haysa feer maaha halkan aan ka cadeynayaa feer kuma imaan kooxaha hargeysa heerka koowaad baa doortay tartankaasina maanta wuxuu u dhigan yahay muuq uunbaa loo sameynaya humaag aan jirin baa dhalinyarada loo abuurayaa dad aan isku leefal ahayn aan isku technician ahayn aan isku dhaqaale ahayn baa wada ciyaaraya kooxii heerka saddexaad ee xaafadda carruurtii xaafaddeeda ciyaarso aan garoon behelin oo gurigeyga hortiisa isku ciyaarta ayaa la ciyaaraya kooxii heerka koowaad ee dhaqaale qaadanaya wasaaraddii umay samayn anugu degmada gaclibax baan deganay degmada gaclibax male garoon lagu ciyaaro xaafadda aan deganay garoon lagu ciyaaro male dhalinyarada xaafaddeedu waxay iska tagaan kuwa privatka wallahi maanta dhalinyar xaafaddeeda waa ciyaarso ka arkayay facebook iyo bahalka tv-go dee carruur yar bay ahaayeen garaadkoodii iyo garashadoodii lama soo korin marka ciyaaraha inaan humaa ku sameyno maahe ciyaaro waxa weeye inaan aqoon iyo karti lagu sameeyo kriteeriyada lagu xulaya tartanka uu ahaado tartano badan hadday sameynayaan oo gobollada feer u sameynayaan annagu hadday dhaqaale noqoto oo taakulanteeda diyaar baan noqonay hadday tabantaamo noqoto diyaar baan noqonay laakiin de hadda siday tahay de waxaan anagu wanu sheegayno bulshada khaladka dee ma maagno mana cayno mana aflagaadayno laakiin waxaan sheegnaa waxa khaldan kaana waan hore u sheegnaa shati baan haysanaa muhiimadda aan jecelay dhalinyarada somalilan aan jecel in ku gabagabeeyo waxa weeye in dhalinyarada la mideeyo 70% weeyaan 70% waxay joogaan dalka oo dhan ma joogaan hargeysa kaliya ma joogaan anigu reer Hargeysa xuquuqdeeda Hargeysa inaan u doodo kaliya ma national baan hayno waa inaan qaranka oo dhan u dooda marka xuquuqda inanka Hargeysa u doodaya waa inaan ka burco u dooda ka boorma u dooda ka laasacno u dooda garoomadaasna hadda istaan tartan ku qabta roog kama gaarsiin kartaan waxaana qorshaha muuqda roog ay dalbadeen sababka qasmin oo sheegay inaan qorshaba lagu dalbane ay hadun naasnuujin cid lagu naasnuujinayo oo wasaaradda maaliyaddu cid siineysay waayo waxa la sameeyaa marka roog la bixinayo waa in gacantii iyo nidaamkii iyo wixii dhan isku raacaya hadda qasmin oo sheegay inay kala qaadan yihiin oo roogina gooni loo keeno bid wali iminkana loogu daray xaalka hoose dee dhigidii iyo gacantii iyo wixii miisaaniyadda dee qoraalkana anu waxaan ku aragnay dhigidda dee way garoonkii roog ma yaalo marka miisaaniyadda ku jirto dhigidna waxaan u arkaynaa dee mid cusub in la soo ibinayo kuwaasna way dayacan yihiin dee muddo 2 sano ku simanna dee garoomadaas waan ka dulqaylinay oo burco waan tagnay waan ka dulqaynay berbera waan ka dul tagnay ceergaa waan ka dul tagnay marka waxaa noo soo baxaysa gobollada bariga marka runta loo soo dhawaado inaan tartanana loo qaban garoomaduna ay dayacayn kuwan galbeedkuna la iskaga jeediyo inay wasaaraddu u dhow yihiin oo qayladooda soo gaadhiso kuwa bariguna qayladu ka fog tahay oo la oranayo kuwa bariga inaga daaya saasay muuqataa marka cumuuman waxaan jecelahay wasaaraddeena diyaar baan lahay oo wasaaraddeedii annagayna xukuntaa anagu dhalinyar baan nahay iyaga siyaasadda noo hagaya waxaan jecelahay inaanu la shaqeyno marka wax fiican qabtaan marka wax khaldaana waxaan jecelahay inaanu toosino marka mar labaad iyo mar saddexaadba Erer TV iyo xisbiga ucid iyo agaasimo maxamed nuur aad baan ugu mahadnaqaya waxaan jecelahay ila gunaanadkii gabagabada qarankan aynu isku tashano inaan isku taagtaagin faraha dhalinyarada u midowno qorshayaal fiican wasaaradda timaado wabillahi tawfiiq barnaamijka anigoo ku soconaya xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga ucid cabdiqani ibrahim salaf cabdiqani maxay tahay xalku se muxuu yahay gunaanadka aad kusoo gabagabayn doontaa talada aad sii doonto dhalinyarada iyo talada aad sii doonto sidoo kale agaasimaha wasaaradda inagala jooga sidoo kale ma noqon doonaa qarankii isku tashta sida uu yoonis ka dhawaajiyey agaasimona isagoo inoo sheegay inay diyaar u yihiin toosinta iyo talada labadaba kusoo dhawo cabdiqani horta marka koowaad qaran quraynu nahay mucaarad iyo maxaafid laba qaran ma kala nihiin xisbiyada mucaaradka dee dalka intii badneed baa u codaysay waana la jeclaa dalka ka haysa sidaasay tahayna annagu xisbi ahaan waanu ictiraafsanay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada wasaaraddeedii waa institution sharciyeysan wixii aanu aragno in ay ku qaldiino ka gaban weyno
waanu u sheegaynaa annagoo toos u hor fadhinayaan u sheegaynaa wixii wanaagsan ay qabtaan waan ku hambalyeynana dee qarankana waa la wada leeyahay xilkuna waa meerto ninba maalin buu xilkan hayaa xeedhada gacanta waa la wada gelin doonaa oo ninba wuxuu ilaahay uga calfay qarankiisa ayuu ka qaadan doonaa laakiin qof waliba horta waa inuu dantiisa gaarka uu ka horeysiiyo danta qaranka waa inaan u aragnaa waxa qaranka la wada leeyahay inay ka fiicantay wax gaarka inuu kala leenay haddii badankeeda leeyahay waxaan dhallinyarada reer somaliland kula talinayaa inay qabyaaladda dhagaha ka furaystaan kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta dalka dhan qura loo jeesto waxbarashada iyo haddii badankeeda lagu mashquulo sportska wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyaradana waxaanu leenahay wasaaraddu dhallinyarada ha geliso intii ay mudnaayeen madaxweynaha qaranka waxaanu sheegaynaa in wasaaradda isaga ayaa dee wasiirkii magacaabay isaga ayay wasaaradda hoos timaadaa qaranka isagaa ugu sarreeya soomaalida waxay tiradaa meel madax ka sarreysa oo la salaaxaa ma jirto markan waxaan leenahay madaxweyne sanadada ku harsan miisaaniyadda dhallinyarada iyo haddii beedankee leeyahay qaabkii dhallinyarada 70% ee badankoodu ay ku nool yihiin gobollada iyo degmooyinka aynu ojihayn lahayn ee ciyaaro kala duwan oo nooc walba ugu qaban lahayn wasaaraddana loo dabageli lahaa loogu dabageli lahaa shaqadii qaranka u hayso ma garanaysaa aan dee maalinta la magacaabona loogu dambayna lala xisaabtamo la ogaado budgetka iyo miisaaniyadda la gelinayo wasaaraddaas halku ku baxaayo la taabto wixii ciyaaraha ee wareeg la qabanayo iyo wixii tartamana si feera oo wanaagsan dalka oo dhan looga wada qabto oo bias laga ilaaliyo ama eexda magaalooyin gaara sida tararkiisa oo kale ayaanu soo jeedinaynaa in ay wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyaradu ciyaaraha qabashadooda keliya atuma xil saarnay maca dhulkii lagu ciyaari lahaa rool bay ku leedahay inay baadi doonto wararta xaafad waliba halkii garoon ku yaala maxaa lagu ciyaar karaa waxa weeye intaana xil la iska saaro oo sidii meelihii loogu ciyaari lahaa ay u caddaan lahaayeen waa in la ogaada waxaynu hore ogeyn berigii hore iskuul waliba garoon lagu ciyaaru lahaa maantana iskuul walba waxaynu ognay garoonkiisa lagu ciyaari cid baa laga iibiyey mashaakil waxa weeye arrimahaasoo kale wasaaraddu inay xil iska saarto oo ma garanaysa anigoo ammaanta ugu badan u soo jeedinaya low level management wasaaradda raggan muddada beer kusoo tabcay ee uu ka mid yahay agaasimahan hor fadhiya maxamed nuux aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aadna waan u ammaanaya raggaa shaqada haystay dee idinku qarankii idinkaa u haysta mar walba idinkaana xukuumad walba wax laga yaabaa inaad joogtaan dee idinkuna inaad shaqadiina level laabtaan oo qarankiina u shaqaysaan ayaanu idinku dardaaraynaa ilaahayna somaliland guriga gobonimo ha gaadhsiiyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasime yoonis xoogay yoonis axmed yoonis xoogaya ciyaaraha ee dhallinyarada xisbiga wadani waxaa kaloo mahadnaqayo bahda ariel t v oo hor fadhiyo sakariye aad baad mahadsantihiin thank you very much gabagabadii inagoo soo gabagabeynay agaasimahan hal su-aalo tii ugu dambeysay siinayaa iyadaanu cidna ku duraynin iyadoo xalkii iyo taladii ay ugu dambeyso agaasime idigoo dhallinyarada gobolada aan kuu siinaya su-aasha maxay tahay qorshaha iyo bishaarada dhallinyarada gobolada u sido maadaama ay u arkaan inay wasaaraddu ka eexatay maadaama ay cabashada ugu badan kusoo qorayaan social mediaha maadaama aad adigu nagala fadhido wasaaraddii ma u qaban doontaan wareegyo ma ku xukumi doontaan shirkadaha sida talisomba ay ugu qabatay hargeysa in iyagana gobol kastaba gaarkiisa uu qabsado maadaama wareeg ama a ama b ama c sida hargeysa loogu qabtay ma u qaban doontaan su-aasha oo aad kusoo xidhi doonto barnaamijka kusoo dhawo agaasime bismillah alxamdulillahi rabbilcaalamiin inaan su-aashaa kusoo xidhin waxaan yar iftiiminayaa xagga garoomada roogagooda yaalla imaka masalan markaynu garoon imaka dimensionkiisa inta gelaysa iyo cabirkiisa iyo nidaamkiisa wuxuu u baahan yahay aynu doonayno inaynu dhigno garoonka marka alaabta loo dalbo ee budgetka loogu daro ee lasoo iibiye la keeno ayaa la qiyaasayaa la tirsanayaa lala wareegayaa dabeedna waxaa la sameynayaa dhigidii budgetka dhigidda iyo iibkuu kala duwanaanaya midna engineer baa dhigaya qalabkana marka hore dee marka dimensionka lagu sameeyo nooca tayada la doonayo iyo intuu tahay rabarkii inta laga doonayo guluudii inta laga doonayo maxaan ku dhahay taabkii waxa laga doonayo xabagtii lagu qabanay inta mitire uu square garoonku yahay intaa marka lasoo helay la keeno ayaa dee miisaaniyaddii aad ka dalbanaysaa in dhigisti loogu daro marka dhigista iyo saasa horta loo kala qaadaayo taa waan yar iftiiminaya tan dambe dhigista hore waa loo bixiyey tan dambe inoogu jirtaana waa dhigista ayaa imika inoogu jirtay iibkiisa horaa loo bixiyey marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin yoonis axmed yoonis oo xisbiga wadani
qaybta ama xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha cabdiqani ibraahim salaf oo isna xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga ucid waa niman dhalinyaro ah aad baan u salaamayaa kulankan aanu yeelanay caawa isbarashada iyo meetingkan aanu ku kulanay aanu doodan ka wada qayb galnay waxaan halkan fariin uga dirayaa dhammaanba haweenka isboortiga ama ciyaaraha kala duwan ee reer Somaliland ciyaaruhu maaha kubadda cagta caawa dhan kubadda cagta ba magaranaysaa hay laga hadlayo Yunus kubadda cagtu ciyaari jiray qaybihii kale baradaaru fiilkeedu ku jiro waa leeyahay ciyaaruhu way badan yihiin wadanka imaka 7 bilood ee dawladda madaxweyne Muuse Biixi ay jirtay 3 xidhiidh oo cusub baan sameeyay 3 xidhiidh ba waxaan ku sameeynaa waxa weeye category ay leeyihiin iyo nidaam ay leeyihiin xidhiidh waa xidhiidhka tenniska long tenniska iyo table tenniska مع شروع ذي النظام كود هالكلام كوه يا ونوك هنا وكا وارك سامر ملاينيا حرير نوع حرير كا لقدين تيو قلامة روك أما سيركس وارك تنو الحسبيات هو يدمر ملاينيا كانوا أقرب منه شروع ذي النظام كشنو دينه ويا لا فالدي وينعان كوه هين نقول هين هبنا ونصمينه تشسكي باشرة وإسنا هرده مقرنساي وجري أو حيتايم كتشبوتي tartan bariga bartamaha Afrika hadda kulli media waa kala socoteen ay ka soo qayb galeen guul gaareen ima kana ay ka qayb gali doonaan tartan ka dhacaya Yurub insha Allah bismillaah kariim waxaan dhiiri gelinayaa dhalinyarada reer Soomaaliland inay midoobaan inay qabyaalada ka midoobaan inay wax qabadka iyo isu tashiga u midoobaan inay wadankeena sida ay noo horumarin lahayn maadaama ayna ictiraaf aysan inagoo aan isu tashan lahayn inay ku hamiyaan baan dhalinyarada ku dhiiri gelinayaa dhalinyarada ciyaaraha ee kala duwanna waxaan ku dhiiri gelinayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu mar walba waxay u tafaxaydan tahay inay qabato tartamo kala duwan oo ciyaaraha ma aha uun caasimadda Hargeysa laga qaban maayo ciyaaraha Hargeysa ka bilaabmay waa ciyaaro dee loogu talagalay kooxo Hargeysa ka jiray naadiyada heerkoodii heerka labaad heerka saddexaad sidoo Yunus Baqaray goboladana waa ka qabanayna waana mandate-ka dee wasaaraddu ay leedahay inay qabato وحده ما قرنا سيوجد يا مشر ظروفه واوين ويبعدوا دبيعي مو يعني كنت لقلك يجوا حوي أنا قبل لنا عياره وسوق منه قبل والبا إن أنا سيديس وسوق منه عياره قبل هذا وينا اللي يقاني قبل هذا حل كود أنت سمستان لقوا عياري هنا إن أنا قبلنا إن أنا دليل هذا دير قلنا إن أنا قرامة ده أوطانا ومن مش كنت تسوي عبد الغني كشيء قرامة ده هرجيس مرة كلامه بقوله كنا ولاين دي ما أنت مليين شن بقول كنا ليهين قرامة ده اسمه دبغيا مركا قرامة ده واحد يترك يعني بالله قرامة دي بالله أنا الدولة ده سقارنا ونقولش قارنا وين هاي سوا ضاي بلين أنت حيرة اللي نوسوس ده الناس الفضيل قادرة أنسال كديك نوسوقنو waxay u baahan yihiin dhalinyaradu in la dhiiri galiyo marwalba bal barbar taagnaado inay qabyaalada iyo nidaamka iyo tahriibka iyo muqaadaraadka lagala dagaalamo tartamo loo qabto waana bogaadinayaa wixii dhalinyaradu leeyahay noo sheegtaan iyadoo idaan dee ka eegin xagga siyaasadda ciyaaruhu waa ka mamnuuc ciyaaraha inaynu ka ilaalino inaynu siyaasadayno waa inaga mamnuuc wadanku waa wadankeeni waynu soo tashanaynaa labadan dhalinyarada ah ee qaybaha ciyaaraha ka soo galay xisbiyadoodii matalayna waa bogaadinayaa kulankeena kulan khayr qabo oo ilaahay dadkayna dhageysanaya uu dhagahooda ku anfaco oo wax wanaagsan inta wanaagsan ay ka qaataan inta xunaanay ka qaadan ayaan noogu bishaareynaya mar labaad waan salaamayaa Sakariye iyo bahda saxaafadda ee Ariel TV-ga Ariel ee qaranka ka jira iyo labadan madaxdaaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadii barnaamijka waxa igala qayb qaadanaya agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Nuux sidoo kale Yunus Axmed Yunus xiriirka ciyaaraha xisbiga wadani sidoo kale waxaan la fadhiyay Ibrahim Cabdiqani Ibraahim Salaf oo xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga oo cid u qaabilsan doodan oo caawa aan ku la fagurnay arrimo door oo la xiriira sportiska waxyaabo fara badan oo loo iftiimiyay labadaba waxaan jeclay labada dhinacba in mid walba ku tusaale qaato waxaan ku soo xirnaa barnaamijka intaan ku kulmayno wiiga dambe barnaamijka ka lamida
waxay kaga imanayaa barnaamijkani xarunta dhexe xisbiga xarunta dhexe telefishinka caalamiga Aerial waxaan kaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aniga iyo dhammaan baxdayga la qayb qaadatay barnaamijka iyo farsamo yaqaanka barnaamijka Ridwaan Engineer Ridwaan Bukhari aad baan idin salaameynaa dhammaan daawadayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu